wararka maanta aanu ka helayna magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya maanta galinka dambe la filayo inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xasan Sheikh ayaa shalay waraysiyo la qaadanayay xubnaha soo gudbiyay codsiyada ee dadaalka ugu jira in loo magacaabo ra'iisul wasaare waxaana musharax walba uu kulanka la qaadanayay in ku dhow nus saac madaxweyne Xasan Sheikh ayaa la filayo in galinka dambe maanta uu ambabax magaalada Nairobi oo ka qayb gali doono xuska maaliyadda xorriyadda Kenya iyadoo ay dhici karto ka hor inta uusan bixin madaxweynaha inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta isla dhaxmaraya cidda loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dadka la hadal hayo ay ka mid yihiin Xuseen Cabdi Xalane iyo Cabdiwaxid Cilmi Goonjeex oo horay xilal wasiiro uga soo qabtay xukuumadii hore labada nin ayaa shalay kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh iyo mid walba ka waramay waxa uu qaban doono hadii xilka wasiirka koowaad loo magacaabo ilaa hadda lama oga cidda sida rasmiga ah loogu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya balse dadweynaha ayaa kuwa u dhagtaagaya magacaabista wasiirka koowaad ee dalka waxa ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayna meel kasta ay dunida ka joogto inaan idin hayno web design raqiis ah web hosting raqiis ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo danaynaya ama shirkad leh ama danaynaya inuu internetka ka sameeyo lacag waxa shirkadda www.disoweb.com idin design gareynaysa sistemo aad ku heli kartiin ama aad ku kasban kartiin inaad ka sameeydiin lacag sida Google-ka iyo Yahoo-ga iyo Bingo iyo meel kale oo badan waxaan kale ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaa inaan idin sameey doono mobile apps oo ah system cusub oo mobilada sida Android iyo apps-ka maan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan kale ugu bishaareynaa inaan u hayno qofkii danaynayo in uu helo wax la dhaho SEO oo danaynayo inuu search engine-ka yimaado Google-ka Yahoo iyo Bingo markii laga raadinayo alaabaadkiisa oo kale sida Soomaaliya oo kaleeto ama Somali shop inaan number 1 u keeni karno waxaan kale ugu bishaareynaa dadka shirkadaha Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook inaan keeni karno numberka koobaad ama aan heli karno ilaa 20,000 oo like ah oo dadka follow gareynayaan marka fadlan hadii aad danaynaysid nala soo xiriir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.